ka hadlaynaa waxa weeye nin baa wuxuu yidhi lababa isa saarayo laba tagogood isma saarin lababa isa saarnayo axmed baa halkan madaxweyne ka noqon doona iyo saxaafad baa afka laga toli doonaa labadaa ismaanaa saarin halgan dheer ayay dadku u soo galeen maaha wax shuruuc ku dheehan maaha wax dastuur ku qoran waa wax dhiig iyo dheecaan ku qoran weeye dad baa xabaalo u galay dumar baa asay u sidaa u qaaday ubad baa ku aabbo waayey hantida loog yahay iyo dadka loog yahay baa ku burburay si ay dadku u yidhaahdaan waxa ay doonayaan maansooyinkii la tiriyey marka la raaco waxaa ku jirtay in la diidi kara yeel sidii maalintaa loo diiday baa loo diidan yahay waxaad la yaabaysaa markaad jaraa'idka iminka akhriyada aragto xisbiga hantooda kacaanka Soomaaliyeed iyo kulmiye iyo wax la isaga dhigdhigayo xisbigaasi wadanka uu haystay wixii uu falayba wuu falay laakiin tiisayna ilaax ma isaga ka talinayay mu ahayn waxan maanta taagan waa kacaanu eg weeye iyadoo qori ku qabsano dadku ay doorteen bay doonaysaa inay dadka caga jugleen iyo hanjabaad ku xukunto cid caga jugleen iyo hanjabaad lagu xukumi karaana halkan ma joogto dadku waa kii weeye waa kii wax loogay sameeyay ee khariidada geeskan Afrika bedelay waxaanu leenahay markay dhabidhabtee tahay dhidar way iska tagi jiray waanay dadku u dagaalamayaan waanay cidna ka bari maayaan cidna magan uga maaha xorriyadooda waxaanu arkaynaa inuu haatu xidhan tahay maanta waxaanu arkaynaa in maanta hubaal xidhan tahay macnaheedu waxa weeye dhammaanteen waynu wada xidhannahay sidaas unbaa u qaadanaysaanoo waa wax idinka soo socdee waynu ka dhiidhiyeynaa ha u qaadanina in laba saxaafadood xidhan yihiin kaamiradaasaa xidhan idaacad baa xidhan telefishan baa xidhan mareegahoo dhan baa xidhan xidhmina maayaan intaynu nool lahay dee ninka shalay iloobaye dee heesii lagu soo tiriyey hadda shalay ma dheerayn waxaa dhacay ma fududayn dee tii unbaa taagan weeye marka ilaahay baa adduunkan ugu weyn oo ugu sarreeya oo awoodda iyo karaamada ugu sarraysa leh cidda ku xigta waa shacbigana xuquuqdiisa uu ilaashanayaa saxaafadooduna xidhmi mayso wax dhaqanka iyo diinta iyo xeerarka waddanka lid ku ana odhan maaya shalay baa la yidhi waxaa dhammaaday shirweyne ilaa imkuu ka socdaa hodheellada qaarkood oo golo dhexe oo soo sharixi doona madaxweynaha iman doona ayaa la leeyahay maanta oo laalan oo aan jirin oo aanu shirweynahaasi baasgarayn oo aanu dhaarin oonu magacyadooda aqoon iyo kriteeriyaha iyo sifooyinka ay leeyihiin ayaa la leeyahay dalku xukumi doona dabeedna waxay doonayaan markay dastuurkoodii yaraa ee kulmiyo xaq dhowri waayeen inay annaga nagu qasbaan wax kastoo madaxooda ku soo dhaca inaanu xaq dhowrno